ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda Jubbaland oo xalay kulamo hordhac ku yeeshay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo dad shacab ka afduubtay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud. Guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo loogu baaqay inay si degdeg ah ku xaliyaan khilaafka ka dhex taagan. madaxweynaha Soomaaliya oo maanta shir kaga qayb galaya magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. xiisad dagaal oo u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland oo saaka laga dareemay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. mas'uuliyiin ka socda maamulka Hirshabeelle oo ku baxay xalinta dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaan hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. doorashada madaxtinimada Algeria oo dib loo dhigay. iyo qaramada midoobay oo ka digtay in xasuuq hor loo geysto muslimiinta Myanmar. markale ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beerraad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale subax wanaagsan waa Talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha 3 Maarso sanada 2019 warkaasi oo fiisan saaka waxa la diyaara Farxiyo Xuseen Cali waa maasan tahay Maxamed Cali Maxamed subax wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa dad shacab ah waxa ay ka afduubteen deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud Maxamed Cabdiwali Tuuxo ayaa dhuusamareeb warkan inooga soo diray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa Al-Shabaab ku eedeeyay inay deegaanka Galqoryaale ee hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ka afduubteen dad rayid ah oo waxba galabsan. odayaasha dhaqanka ayaa sheegay Al-Shabaab ay laba qof oo shacab ah ka afduubteen deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud. labada ruux ee la afduubtay oo ah rag ayaa inta badan ahaa dad xoolo dhaqato ah kuwa oo ka biyadiiday inay bixiyaan lacago ay Al-Shabaab ula baxeen sakawaad oo dadka deegaanka u arkeen boob iyo baad. saraakiisha ciidamada Galmudug ayaa wacad ku maray in ciidamada maamulka ay qaadi doonaan howlgallo dib loogu xoreynayo dadka ay Al-Shabaab afduubteen. arrinkan ayaa imaanaya bilokoor kadib markii ay Al-Shabaab afduubteen ilaa 20 caruur ah oo ay daadoodu u dhaxayso 12 ilaa 14 sano kuwa oo laga soo afduubtay deegaano hoos yimaada degmada Xarardheer ee gobolka Mudug. sida ay sheegeen dadka deegaanka Al-Shabaab ayaa diiday in caruurtaasi waalidiintooda dib ugu wareejiyaan iyagoo qorsheeyay inay ka mid noqdaan ragga ka tirsan Al-Shabaab. Maxamed Cabdiwali Tuuxo idaacadda Kulmiye dhuusamareeb. guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay si degdeg ah ku xaliyaan khilaafka ka dhex taagan. Liibaan Nuur Xasan ayaa ka waramaya. iyadoo muddooyinkii dambe ay soo ifbaxaysay wada shaqayn la'aan ka dhex jirta labada aqal baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Mursal Jaamac Geedi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in khilaafka ka dhex taagan labada aqal ee baarlamaanka uu caqabad weyn ku yahay geedi socodka dawladnimada Soomaaliya. xildhibaanka oo la hadlay radio Kulmiye ayaa waxa uu rijo weyn ka muujiyay in labada guddoon ee baarlamaanka ay ka wada fadhiisan doonaan si ay u wada xaliyaan caqabadaha ku horgudban wada shaqaynta golayaasha sharci dejinta dalka. saameyn weyn bay ku yeelanaysaa labada golo waa inay wada shaqeeyaan labada aqal inay wada shaqeeyaan weeye oo maaragtay wixii golaha shacabku uu baasgareeyo dadana aqalka sare la geeyo oo halka iyagana ay ku soo ansixiyaan kadibna madaxweynihii loo gudbiyo oo halkaas isaguna ku saxeeyo. marka haddaan wada shaqayn jirin laamaha dawladdu aysan wada shaqaynaynin caqabad weyn oo hadda dalka wadada haysata ayaa maaragtay laga filaya. marka waxaan rajaynayaa in guddoonka labada guddoon aqalka sare iyo maaragtay golaha shacabka iyo golayaasha maaragtay guddiyada joogtada ay isaga iman doonaan oo wada shaqayntooda bilaaban doonto. waa dastuuri waxyaabaha la isku hayo kaana dastuurka loo noqon doonaa oo halkaas lagu xalin doonaa baan isleeyahay. umana baahna hadda dalkan in labadiisa aqal ay iskhilaafaan waxay u baahan tahay inay wada shaqeeyaan. bishani gudaheeda ayaa lagu wadaa in la furo kala fadhiga shanaad ee golayaasha labada aqal baarlamaanka Soomaaliya. waxaas haddii la xalin waayo wada shaqayn la'aanta jirta ay saameyn ku yeelan doontaa shaqada laamaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda Jubbaland ayaa xalay kulamo hordhac ah waxa ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Qaasim Cali waxaa wariyaheena ayaa warkan Kismaayo inooga soo diray. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo xalay ku hoyday magaalada Kismaayo
ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa kulamo horudhaca xalay ilaa iyo saakay la qaatay madaxda ugu sarreysa ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoona sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo halkaasi ku sugan ay sheegeen in inta badan kulamadaasi looga hadlay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo in muddo u dhaxeeyay madmadow dhinaca siyaasadda iyo sidii loogu gogol xaari lahaa shirki ay horey dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sheegtay in lagu dhameyn doono madmadowga siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda Soomaaliya kaas oo sida lagu wada dhawaan ka dhici doono magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland wararka ayaa intaas ku daraya in maanta ay bilaaban doonaan kulamo waaweyn oo u dhaxeeyo wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo golayaasha dowlad goboleedka Jubbaland kulamadaasi oo inta badan looga hadlayo danaha deegaanada Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya Maxamed Qaasim Cali Waxar idaacadda Kulmiye magaalada Kismaayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo xalay gaaray magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa halkaasi waxay uga qayb galayaan shir ku saabsan xaaladda Afrika. Farmaajo ayaa halkaasi uga qayb galaya shir loogu magac daray shirka Afrika ee hadda Africa Now Conference waxaana ka qayb galaya hogaamiyaal badan iyo hay'ado caalami ah. madaxda ka qayb galaysa shirkan waxaa ka mid ah madaxweynaha martida loo yahay Uganda, kan Koonfur Afrika, madaxweynaha Tanzania iyo kan Kenya, wakiilo ka socda hay'adaha iyo bangiyada caalamiga ah, ganacsato iyo ergooyin kor u dhaafaysa ilaa iyo 1,000 qof. madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddada uu halkaasi ku sugan yahay waxa uu kulamo la qaadan doonaa hogaamiyaal shirka ka qayb galaysa waxa uuna kala hadli doonaa xaaladda Soomaaliya. xiisad dagaal oo u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland ayaa saaka waxaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya warkan. xiisadan dagaal ee u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Sanaag kadib markii ciidamada Somaliland ay bilaabeen dhaqdhaqaaq ciidan iyo hanjabaad ay u dirayaan dhanka maamulka Puntland. cutubyo ka tirsan ciidamada Somaliland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in ay degeen duleedka degmada Yube halkaas oo ka mid ah goobaha aysan ka dheereen fariisimaha ciidamada daraawiishta maamulka Puntland ay halka ku leeyihiin. saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Somaliland ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah saldhigyada ciidamadaasi waxaana ay sheegeen in ay isha ku hayaan amniga xuduudda Somaliland sida ay sheegeen. Somaliland waxa ay ku dhawaaqday in magaalada Baran ay dusha ka ilaashanayso isla markaana aysan aqbali doonin in Puntland ama jabhadda Cornel Caare ay ku soo xadgudbaan siday hadalka u dhigeen taliyayaasha Somaliland ee gobolka Sanaag. dhanka kale taliska ciidanka booliska maamulka Puntland ayaa sheegay in ay jiraan ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo qabsaday dhul Puntland ay leedahay hayeeshee ay jiraan ciidamo ay soo dhoobtay xuduudda Puntland ay la wadaagto degmada Cerigabo ee gobolka Sanaag. taliyaha ciidanka magaalada Dhahar ee xarunta gobolkaasi Highland Saciid Cali Cumar oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ay waxba kama jiraan ay tahay in Somaliland ay howlgallo ka fulisay deegaano hoostaga degmada Dhahar ee gobolkaasi. nimankaas suulka Cerigabo ciidamo ay leeyihiin daayiri baan ugu maqaalaa ciidamada difaaca Puntland waa u diyaar garoobeen waa u heegan hadda wax dhib oo dhacay iyo wax bilaayahay midna ma jiraan cid is aragtayna ma jirto. nimankan dib laga warayaa suulka Cerigabo oo hadda inaan inagu ku sinayn inay joogaan dhaqdhaqaaqooduna waa laga socdaa intaasaan ka warrabaa. Somaliland howlgal kama fulin gobolka Sanaag waxaan uga qorshaysan waxaan u leenahay ciidamo difaaci kara dalkooda iyo qarannimadooda baan u leenahay haddana heegan waa ma jira haddii ay soo daadaansadaan baaheen wadankayga hadda malama joogaan sidaas weeye walaale annaga heegan weeye ciidamada iyadu haddii xuduudahayga lasoo galana waa u diyaar inay difaacaan dalkooda laakiin hadda wax dhibaataa oo dhacay ma jiraan waxaa soonka Cerigabo ciidan yidhi. dhanka kale taliyaha ciidanka degmada Dhahar ee gobolka Sanaag ayaa sheegay in ciidanka daraawiishta Puntland ee ku sugan deegaanadaasi ay ku jiraan heegan buuxa isla markaana ay ka hortagi doonaan gardarada uu ku tilmaamay in Somaliland ay ku soo qaaday dhul ay Puntland maamusho. mas-uuliyiin ka socda maamulka Hirshabeelle ayaa ku baxay xalinta dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya.
gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku baxay xalinta dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. mas'uuliyiinta ayaa ku baxay xiisad ka taagan deegaanka Mukadheere oo ka tirsan degmada Balcad. deegaankaasi waxaa dhowaan ku dagaalamay 2 maleeshiyo beeleed waxaana is soo taraya qaylo dhaanta ka soo baxaysa odayaasha deegaanka. sidoo kale Mukadheere waxaa ka taagnay dilal salka ku haya aanooyin qabiil waxaana mas'uuliyiintii ku baxay colaadaasi laga sugayaa inay xal ka gaaraan xiisada deegaanka ka jirta. xiriir aan la sameeyay maamulka degmada Balcad gaar ahaan xubnaha colaada ku baxay ayaa inoo suurtagelin in aan helno, balse dadka deegaanka ayaa ku waramaya in colaada deegaanka ka jirta ay u baahan tahay wax ka qabasho degdeg ah. degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka Hirshabeelle oo ay ku soo laalaabteen dagaalka iyo dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil. hore duleedka degmada Balcad gaar ahaan deegaan u dhaxeeya degmooyinka Balcad iyo Jowhar waxaa ku dagaalamay 2 maleeshiyo beeleed kuwaas oo dhowr qof isaga dilay, mana jirto ilaa iyo hadda xal laga gaaray colaada gobolkaasi. warkaas waxay keeneen ayaad wali dhageysanaysaan dhageystayaal. waxaad maqli doontaan warar ku saabsan doorashada madaxtinimo ee Algeria iyo qaramada midoobay oo ka digtay in xasuuq horle loo geysto muslimiinta Myanmar. balse markan madaxweynaha Algeria Cabdicasiis Bouteflika ayaa dib u dhigay doorashadii madaxtooyada oo la filayay in la qabto 18 bisha soo socota ee Abriil. waxa uuna sheegay in uusan mar shanaad u tartami doonin xilka madaxweynaha. musharaxnimada madaxweyne Bouteflika ayaa waxa ay keentay banaanbaxyo weyn oo wadanka oo dhan ka dhacay. waxa uu wadanka soo hogaaminayay 20 sano waxaana dhif ahayd in dadweynuhu arkaan. sanadkii 2013 waxaa madaxweynaha ku dhacay xanuunka stroke. wali waqti rasmi ah looma asteen doorashada. war ka soo baxay madaxtooyada Algeria ayaa sidoo kale lagu sheegay in golaha wasiirada isku shaandheen uu madaxweynuhu ku sameyn doono. sidoo kale waxa iscasilay ra'iisul wasaarihii dalka Ahmed Ouliya. ugu dambeyntiina dhageystayaal Bangladesh ayaa lagu eedeeyay in ay abuureyso xasarad hor leh oo ka dhan ah muslimiinta Rohingya oo la doonayo in dib u dejin loo sameeyo 23,000 oo ruux. hay-adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa sheegtay in deegaanka la doonayo in muslimiinta la dejiyo ay ka muuqdaan waxyaabo muujinaya abaabul ka dhan ah dib u dejinta Rohingya. wakiilka qaramada midoobay ee u qaabilsan gargaarka Myanmar ayaa sheegtay in dadaaladii la doonayay in dib u dejinta loogu sameeyo muslimiinta laga tirada badan yahay ay wiiqmeen maadaama laga baqayo in xasuuq kale uu dhaco. dad ka badan 73,000 oo ruux ayaa ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Bangladesh kuwaas oo ka soo cararay dhibaato loogu geystay gobolka Rakhine. guud ahaan warkii subaxnimo dhageystayaal oo asaaka kala socoteen raadiyo kulmiye Muqdisho waa naga intaa cid uu seego waxa ay ka heli kartaa radiokulmiye.net ee nabadgelyo.